واجب فطوبى وطوبى لمن وفرا وويل وويل لمن حرم احتفالا لميلاد خير الورى مدي عادي قاعد أو طبيعي قاعد سنة والبلا سماي جري أو هاي النبي جينا لويني عليه الصلاة والسلام مدة لبعضنا وجواب لقى جواب يعني شيدان كأوتلي يا فرانسيسكا أفلقادي أو أوجيستي نبي جينا صوبا عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام وحكون حجرا قلوبتنا ما أقبلينه شرف كيسا وحلادمه. هذه المناسبة الكريمة عقدت للاحتفال بالمولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام وعلى الرد للإساءة الفرنسية للمقام الكريم لرسولنا صلى الله عليه وسلم. الرسول حي في قلوبنا لا نقبل إهانة من أحد وسنرد على كل اعتداء على الإسلام ورسولهم وسيبقى الإسلام باقيا خالدا خلود الأبد ولا يضره نباح الكلاب نباح الكلاب. وإن شاء الله تعالى المسلمون في أرجاء العالم الإسلامي ردوا على هذه الإساءة كل بطريقته الخاصة مقاطعة المنتجات يعني ونأمل أن تتخذ الحكومات الإسلامية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الفرنسية التي دأبت على الإساءة إلى رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. أنا كهلينا عدك علماء الصوماليات ملك استوئجوان قران عدك علماء أهل السنة والجماعة أنا كهلينا وحلينا ميكرون وحكو حد قدبي نفتيسا يعادتك ومزولك وياهي maaha waxa uu ku xadgudbay islaamka iyo ahalkiisa maaha mana gaari karo awal buu wuxuu ahaa gaal daciif ah oo eeyaha qaylinaya aan looga duwanayn u ahaa aan qiimo agtayna aan ku lahayn kilaabul naaxiyaadku ka mid ahaa sida sheekheenu ku tilmaamay laakiin wuxuu dumiyey uu tirtiray oo cawaaqib xumo u dhaxal siiyey ummadda uu madaxda u yahay maanta waxaan dareensiinaynaa mikron xadgudubka uu geystay xabiibkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka helayo gurigiisa inuu ka helayo kursiga uu ku fadhiyo inay dhaxlayso cawaaqib xumadaas ummadda isaga madax ka dhigatay waxaan leenahay mikron ha dhaco mikron ha dhumo mikron ha dhinto duwalal islaamka oo dhan iyo dadka muctadiliinta ah oo nolosha ka run sheegana waxaan ugu baaqaynaa inay calaaqaadka ka goostaan gaar ahaan dadka faransiiska waxaan leenahay كريتا حكومتنا كريتا هدي ربطان نول يحرموا مسلمين تمالي جوغان با وحانو ugu baaqaynaa waxaanu ugu bishaaraynaynaa waxaanu ugu hambalyeynaa dhalashadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam bishii nabigeenu uu dhashay ilaahay subxaanahu wa ta'ala una amray in aanu ku faraxno qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu nabigeenuna uu yiri ana rahmatun muhdaat anigu waxaan ahay naxariis ilaahay idin soo hadiyeeyay nimcadana ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku nimceeyo ولغا شكريا ولغا مهدعليا وأما بالنعمة ربك فحدث أيو يري إلهي سبحانه وتعالى النعمة ربك أو كسية كشاكا وحانو إسوغو صباحناي فرحة أنو كفر أحسنناي أنو عاوة أيتهاي ليلدي نبينا عليه الصلاة والسلام ونود شيء سيدات قرانيسا نبينا وحود شيء صلاة الصبح دبادات هبين كان قيب أيو كقبي مالنتنا قيب أيو كقبي اثنين بونا نبي قد شيء صلى الله عليه وآله وسلم waxaan kaloo isugu soo baxnay cambaaraynayno lacanad aanu korka uga tuurayno macron
ماكرون مدحوينها فرنسيسكا شعبك فرنسيسكا مسلمينتا وانو جعلنا ولالهن ويه معزده يا مصيبه قبصتي شعبك فرنسيسكا مسلمينتا وانو لا قيبسنينا مurugada qabsatay shacabka muslimiinta ee dhagahooda ay ku dhibceen xumaanta nabi maxamed ee ku murugaysan faransiiska dhexdiisa waanu la qaybsanaynaa macronna waan lacnadaynaa shacabka iyo inta gaalada la qabta fikirkaas waanu lacnadaynaa muslimiinta meel walba ay joogaan ama faransiiska ha joogaan muslimiinta faransiiska waan idin jecelnahay muslimiinta faransiiska murugada idin haysana waan idin la qaybsanaynaa gaalada iyo kufriga ka jira wadankiinana waan nacabnahay waxaanu cambaarayn dusha uga tuuraynaa macron waxaana ka codsanaynaa shacabka muslimiin iyo gaalo waxay leeyihiinba faransiiska inay kacaan oo magaranaysaa xadgudubka lagu sameeyey diinta islaamka in ay xorriyadda caqiidada iyo xorriyadda diimaha ee lagu xadgudbay ay ka kacaan ayna kacdoon sameeyaan macronna ay ihaanaystaan ayaannu ugu baaqaynaa wuxuu nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam markuu waraaqaha diri jiray wuxuu dhihi jiray hiraqle cadiimi ruum aan la hadlaa u dhihi jiray hiraqle oo bukhaari ku yaalla iyo kutubo badanba hiraqle qablaha ruum ayuu ku magacaabay gaalweynihii ayuu ku magacaabay melig boqora kuma magacaabin madaxweynena kuma magacaabin kutubaha axaadiista iyo shuruuxduna saasay aad ugu dhigayaan marka waqtigii nebi moxamed la soo diray ilaa hadda wixii gaal ah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama inaan madaxweyne la dhihi karin oon boqor la dhihi karin saxiixulbukhaari oo qur'aanka dabadii kitaabka ugu weyn bay ku taallaa madaxweynaha iyo waxa meesha aan ka maqlayaa waa nugu qalad dadkii caadada gaalada iyo dhaqanka gaalada ka xoog batay hadiise ku yaala bukhaari iyo muslim aan arrintaas inkiray marka waxaa la leeyahay qabqabla dagaal ooge faajir shaydaan ayaa la dhahayaahe wax madaxweynaha ma jiraan wax boqor ma jiraan ma jiro waxaan ugu laabanaynaa ina aladiina yu'duuna allaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa kuwa dhibaya لعنهم الله في الدنيا الله لعنه نعلد بكتوري قال كل بريء أي هذا وجهري أو نن مسلم هو بريء سرك كجري قال هذا النبي عايدنا سرك إلا كجري الله ربا قال كفرسيس كوجوين قبلها أنا أرنت أيوه راعي أسجنا وحال ربا إن ويل مسلم الله هلو أو سرك كجوي بريء أيام ما تلوب اللغة كجرة أيام ما تلوب هي هوي لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد آخرنا عذاب الديارة مركي بختيان قال مرة ما تأه كبه هذا أي عذاب كلا لقلينا إياه بل فيري وأعد لهم عذابا مهينا عذاب شرفت كدله أيان إلهي كوا أيجا ومارت الديار قريي لعنة الله على ماكرون لعنة الله على كفار فرنسا إنا أنت صدقنا يعني سقو صباحني إخوة الكرام أن علماء إيجا الرئيس عشاقتي waxaan noo haray waxa waaye aawa hogaamiyayaalkayni aawa madaxdayni aawa hogaamiyayaalkii islaamka may ka hadlaan aawa madaxdayni dawladda Soomaaliya ee federaalka ah hadalkooda ma aanan maqlin ha ka hadlaano ummadda ha ka soo baxshaano xiriirka ha u jaraano waa ognahay wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya oo siyaasadooda ka hor yimid ay buubiyeen safiirka Faransa waa inay buubiyaan waa inay wadanka ka eriyaan waa inay safaaradooda kala soo noqdaan la'natullaahi calayhi ikhwatal kiraam inta kadib waxa intaan waa in yar oo hal jamaaca laakiin islaamka Soomaaliya jooga bariyo ku balansan yahay inuu maxfalka isugu yimaado labada saac oo subaxnimo انتبه لا إله إلا الله محمد رسول الله نهضة مسلمة ودويك صبرنا محفلك شبسا نوبلما يمري الله بس إن شاء الله تعالى وما زال أهل المرحبة أن يقيم احتفالا له أبهرا وما فعلهم بالصلاة وبالثناء عليه لقد قدرا
بادر وكن معهم واذكرا فما ينفقون لتعظيم